السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي مالك استوى جوكتان مركلة كسور دوادا channel كينا قصوين كنظارة لبا هدبا هو مركلة وآن إذين سو قدبنينو قصدي أدنغا سوغيسين تضباتكن haddaba qisadanu waxa ay ka mid tahay qisooyinka cajaa'ibka ah ee aynu markaa ka soo xiganayno buugga uu qoray qisooyinka xaqiiqda ku salaysan qoraaga reer Kuwait ee Abu Talal. haddaba qisadan sida magaceedaba halkan noogu qoran waxa ciwaan looga dhigay qisada maxlalka محلل إيران سوماليدا عربتنا أساس إيران محلل سيديسا وحواي إنكستو دينتي إنه أي دي لكن ولي رقم هذا قار عربتا سوماليدا حتى ولي واي سعوتا نكي يناكتا إسقابان مركا يدلغلاها كذا معدان وهدنا مركا لا أيدون يعني يسكولها هبتان وحلو باهن يهي in nin kale ay naagta guursato oo ay la seexato haye markaas kadib ninkii inuu ku soo laabto marka farsamadaas ninkii iyo naagtu ay ka shaqeeyaan ayaa maxlal leeyahay sheekadeenu marka sheeko cajiib ah oo ariga ku saabsan oo yaab leh ayaanu maanta idinkaga soo xulnay buugga qoraaga uu qoray ee sheekooyinka la yaabka leh ee dhacay waayahay marka sheekadanu waxay ka dhacday magaalo ee gobolka la yiraahdo Darca wuxuu ku yaalaa Suuriya sanadku waa 2008 ka hor intaanay rabshadaha iyo dhibaatooyinka badan aysan ka dhicin dalkaas weli dawlad baa ka jirta xaalku waa Barambar Bashar al-Assad iyo kooxdiisa ayaa jooga waqtigaas haddaba maxaa ka dhacay marka meesha sheeko la yaab la dhacday ilaa hadda aad loo hadalhayo sheekadaasu marka waxay tahay nin oday ah oo la yiraahdo Alxaaj Xasan oday waaye wuxuu ilmo ka dhalay laba cunug midka weyn waxa la Abdul Hakim midka kale waxa la Abdulkariim labadooduba waxay ahaayeen laba wiil oo wax bartay oo odagu waqti badan geliyay Abdulkariim waxa uu u dhoofay Mareykanka waa mid ka yar Abdul Hakimna wuxuu u dhoofay Yurub nin walba marka halkaas uu ku guursaday dhaqaatiir waay midkan Abdul Hakimka weyn ee Yurub jooga waa dhakhtar kan kalena waa injineer muhandis waay wuxuu u shaqeeyaa shirkad weyn oo Mareykanka marka labadiisa cunug waa aaday maartay ونمعيسي odaga marka kaligiisa soo haray markii hore uu iska xariiftamay odaga laakiin markii dambe way ka daba timid daadii ka daba timid waa yeelu noqday wuxuu u baahday in la xanaaneeyo dhowr jeer ayaa Darca laga soo wacay labadooda odagii aabina ma dutimaadaan mid ka yar ayaa marka aad u naxariis badan Mareykanku ka soo duulay xaaskii iyo ilmihii iyo wixii dhan uu ka soo tagay shaqadii uu ka soo tagay si uu odagan u xanaaneeyo wiilkii Abdulkariim odagii guriga yar oo iska deganaa gurigii iyaga ay ku dhasheen gurigii uu ka saaray guri villa ah oo weyn oo qurux badan ayuu dhisay xogaa lacagana waa haystay gurigii marka asaga iyo odagii ay u guureen Abdulkariim waxa uu la saaxiibay wiil dhalinyaro oo la yiraahdo Caadil dadkii ay isku xaafada ahaayeen waagi ay yaryaraayeen marka hadda saaxiib la noqdo Caadilka nin wax bartay ma nin iskuul dhigtay oo sida nimankan oo kale odagan labadiisa wiil oo kala camal ma waa nin iska caadi oo waxba baran waxbarashada ka saaqiday iska qof iska normal
ويسكا صاحبين وسكلا شيكيسن جرين كان أوضو ماشو كويستا gurigii ku hayaa islaantii iyo caruurtii iyaga safar ugu yimaada way laabtaan isagu wuxuu yiri aabahay meelan ku ogaanayeen asaga iyo midka ka weyn marka waxay ku heshiiyeen 3 sano ugu horeysa Cabdikariim inuu obaga hayo la joogo markii 3 sano u dhamaatana Cabdixakiim ka weyn uu bedelo dhakhtarka ah isagana uu hayo saas inay isu bedbedelaan waa laba nin oo maartay wax bartay jadwal ay sameysteen xisaabtooda waa isku dhufsadeen Cabdikariim shaqadii u cabay Cabdikariim ninkan wuxuu arkay saaxiibkiisa oo iska danyar ah markaasuu wuxuu yiri Caadil shaqan ku siinaya markaasuu maxaa shaqada iga siinaysaa wuxuu yiri guriga ayaad xaaris ka noqonaysaa macnaha ganjeelka albaabka baabuurka ku jira guriga cidoo iska lacag leedahay gurigana ilaalinaysa maadaama saaxiibkay aad tahay lacag saad u hesho meeshana marka kugu biilayna okay Caadil guriga shaqo ka bilaabay guriga yaa degan odaga wiilkiisa iyo Caadil waardiya oo ninka saaxiib leeyahay iyo gabar shaqaala oo timaada oo ka tagta oo la shaqaysa cuntada iyo u samaysa 3 sano ee Cabdilkariim way dhamaatay Cabdilkariim wuxuu telefoonka ku wacay walaalkii ka weyn waxa la yiraahdaa Cabdulxakiim دكتور واي وين جامعة كتالا ودمضى يوروب ودن كيتان لما شيغين أيو معلن كي هاي اسبتال وكشقيا ونختر وين أو إلكها إيو وحا كان سوريان كده ورقات ويقانا دان ديستها مارتي دخاتيرت إلكها أي آدو في عين إلا أولي وساسي عين نيكي مركا 3 سنة markii la soo gaaray uu bixirabay kaasna wuxuu shaqo ka dalbaday isbitaal weyn oo ku yaala Darca macnaha maadaama 3 sano uu joogayo hadii uu ka helana waliba wuxuu yiri 5 sano ayaan ka sii dhiganayaa day meeshan sii degaya aaba anna saaro ilaaliyo marka shaqo ka abalay gareeyay isbitaalka waa hadeenin xagga ka ah dhakhtar weyn halkan hore uu shaqadii ka helay Cabdikariim waa dhoofay wuxuu u laabtay Mareykan Cabdilxakiim iyo naagtiisa iyo 3 caruur oo dhalay way soo degeen kaas caruurta xaguuba uga soo degeen moogta kan waa soo rartay wixiis waxa la yimid Suuriya asaga iyo naagtu marka dhowr jeer hore isku dhacdhaceen وأنا إسكت ضبيعات قلفسن عبد الحكيم مروا فري أنتي يوروب أي شوجين مر لبعض فري استجوا هذا العقوقة أيا وحو يمد سوريا مركي عبار اللي تشوجي ولا يسكت عهدنا العبد الحكيم حسمي دلقبي سدحاد وسي خلاص وأنا ما تمرك وحي دلقadaha oo isku qabeen halkaas ku dhamaaday gurigu markuu waa guri weyn laba dabaqa waaye guriga wali sidii waaye ninkii Caadil uu keenay Cabdikariim ayaa wali waardiya oo guriga ka shaqeeya baabuurtu hagaajiya guriga maartay uu qayb ka qaataa nadaafadu ka shaqeeya albaabku furaa xogaa lacag fiican waa la siiyaa waa markii nin iska dhalinyaro ah kaas 30 ma gaarin waa dhowr iyo 20 sano jir wiilka guriga waardiyay ninkan doctorka ahna waa 40 jir xaaska uu doctorku hadda furay ilmaha u dhashayna waa 35 jir marka qiyaasta waxa u dhaxaysa 5 sano doctorka iyo xaaskiisa 5 sano u dhaxaysa xaaska iyo Caadilkana guriga waardiyeynayana qiyaastii 10 sano ayaa qisada lagu sheegay marka 25 jir meelaas waa wiilka guriga waardiyay doctorkii gabadhii iyo caruurtii waa ceeb in doctorkii dhamaa caruurtii iyo xaaskii iyo wixii ay ka tagaan marka wuxuu yiri qaybta hoose iska dega
ama qaybta kore deganaan qaybta kore guriga asaga ayadii caruurteeda iska dayeen asaga qaybta hoose aabihiisu ku hayay bilaa dhamaatay bishii labaad dhamaatay tii saddexaad dhamaatay tii afaraad tii shanaad ninkii cabdixakiimka ahaa iyo naagtii waxay yiraahdeen deesaan xal ma jacaylkii soo laba kacleeyay wixii caruurtii in la korsadana waa la rabaa wixii horena waa dhaceen marka laga qoomamay cabdixakiim doctor cabdixakiimkiina waa qoomamay islaantu waa qoomamay saada maxaa xal noo cabdixakiim wuxuu yiri marka xal kale ma jiro ilaa nin uu ku guursado kadib aan isku noqon karnaa marka tii hawsha ma ka shaqaysid waxaa dhahaysa xaaskiis haddee okay yiri marka sidee uga shaqeeyaa cabdixakiimkii marka waa cid marka og male guriga xataa ninkan caadilka inay kala tageen in kale iyo wax og mal ayaga bas isugu xudu waa qarsadeen reerihii wax og male cid wax og male nimanka shambiloodaba furiinka ka soo wareegad cabdixakiimkii marka waa fakar wuxuu shiriniyahow nin kale haddaa keento sheekadii waa baxaysaa bannaankay aadaysaa niyo wiilkan dhallinyarada ah oo guriga ka shaqeeya maa dhiil la geshid si uu hawshan kugu fududeeyo sheekadii baxlalkii waa mogtay baxaa dhici doono marka sheekayaabla meeshaa ka soo socota muhiimada sheekada marka haddaa la gelaya ninkii marka wuxuu la fariistay ninka la yiraahdo Caadil yaa Caadil adiga waxaa tahay walaalkay saaxiibkiisa tahay ninka guriga wala noolaa tahay ninka kana tahay waxaan rabaa maanta hal arin inaan kugu sir qarsado oo aad ii qabataa rabaa ninkii marka uu yaabay doctor maxaa aniga wax aan ka diidayo ma hooyada ninkan dib u shaqeeyaa lacag fiican ay siiyaan adoo iska ladan yihiin ninka marka wuxuu yiri dhageyso niyo aniga iyo xaaskayga waa isfurnooy hadii loo yaabo ma ogaba asaga laftirkiisa dad haye saddexdii dalqana waa naga dhamaatay hawla wala quwwata illa billah haye hada barka niyahow waxaan ka rabaa inaad shaqo ii qabato maxlal inaan sameeyno gabadhan inaan guursato sharciyad ku guursatid mehersatid walaalkeeda waxa jira meel jooga oo aan isnaqaano oo isagu nala og sheekada asaga bas hawshi dhamaynaya marka hawshaas markay dhamaato 3 ayaam 3 maalmood ayaa la joogaysa 3daas maalmood aniga fasaxan qaadanaya meel gobol aan tagaya 3 maalmood kadib marka soo laabto waa furaysa si anagu ay noogu sahlanaato marka 3 bilood kadib gabadhii aan ku laabto ninkii Caadil ahaa wuu yaabay gabadha dee wuu ixtiraamaa dadkan familkan aad u ixtiraamaa gabadha markuu la hadlayo xataa hoos u fiiriyaa waa shaqaalahoodii waay wuxuu yiri niyow aniga ma iga deysid doctor aniga iga dhaafo sheekadan aniga waa iga weyntaa alaabaan baaba geli karo ma aha ma iga dhaafti maya wallahi alcadiim wax dhiba ma kaaga imaanayaan annaga waxaan diidaynaa dee dad kale iyo wixii inay maqlaacdaa walaalkeen oo kale noo sir qarinaya lacagna waan ku siinayaa hawshaa dhamee wuxuu yiri waa ka soo fakarayaa bal isu maalin 2 3 maagii afraad dan wuxuu yiri ma fakarti والله إني واحد صمي مقرنا ويني كان وحولي حتى ولالكي عبد الكريم كاوشيجي عبد الكريم كان نكا صاحبه حتى هوشيجي نكا ما كاسكدا عدوى عادل اوكي وسكدا مركي دب هي واي شاكدي على دمي مهركي على دعي قبل ولالكي دي الله وعي ولا مهري نكا سفركي 3 مع الموضوع كوبنا وسكا ninkii caadilka ahaa islaantii ku haray siday taa u feystay ninkaas 3 maalmood 10 caadi heeru maamadii u dhigay ninka doctor Cabdulxakiim waa soo laabtay
دكتور عبد الحكيم وحوي بيت قري نكانو صالوتدي فديا ماشي السيجار يرقشدن yahay كافيه ماشي ويالو سروال دبا غابا وتا غران وتا وانا نين برير نيكا عادلكا نيكا waa nin weyn ninka دكتور عبد الحكيم kale leeyahay waa nin weyn oo دكتور weyn hal gacan ku qaban kara ninka caadilka عادلك وصو أكفر السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور عبد الحكيم كيفك الحمد لله تمام ما أنت مالك يسدحاد مكتوبين هؤلاء إني هو يري ليش ما أنت وأنا هوشي لما يسد وقبل عفرته اللي كان قبل فور مركي اللي هوسو فيرنا ninka wuxuu dhigaysa adiga soo bayna balansaneen ninka marka wuxuu inuu dhigayso gabadha horta sharciyaan ku qabaa mugtigi waa ugu dhaay hadaa sharci ku qabtana meeshaan heshiisa jiray gabadha inaa furtaa laga rabaa warniyo wuxuu yiri furiinka waa yara adag yahay waa ka soo fakaraya عبد الحكيم كي وكورك نيكي كليتي وقبتورا ليسو 3 أيام خلاص وقورنا بعد والله العظيم هذا فروج ما تنفتا قرا فراوي نيكي وعرفتي دسالا لو قبت اسغي دبوقتاي عرفتي وعرر قولي كبح فقطع دواقابكيس صوت قولي كعرر لعقنا مفرن قولي دواك عرر نيكي عبد حكينا نيكي بركة هو يابي gabadhi de war ugu noqdo male gabadha ninkan mashruuca asaga diyaariyay gabadha asaa ula tagay gabadhi okay iyo tiri hadaa isku laabanayno diyaar wax kale ma weydiin karo gabadha ninkii wax kala dhaxay asaga ninka gurigiisu isla soo laabtay caadi odagii aabihiisu iskala joogaa ninkii waa maqan yahay maalin 2 3 4 5 6 7 beri waa raadiyay marka ninkan ninkii meel loogu sheegay makhaayada fadhiyo u tagay السلام عليكم وعليكم السلام ninka marka hal kala maayo dagaal hadda ma jiro moogta inuu iska barbariyo waa dhig warniyahow wuxuu yiri warniyo soo dhawow warniyahow nin walaalaanahay dad asxaabaanahay walaalkay saaxiibkiisa tahay waa ballanay nimo maxay tahay waxa sameynaysid maxay tahay waxa kan ninka ma hadlaayo shib wuxuu yiri halkeen meesha waa la buuxaday oo maqaayad inta ku soo boodo kuleetig maxaa isku haystaan la dhaho ninka doctorka de sumcadiisu ilaalina nin aad looga yaqaan waa meesha dhakhtar weyn waaye ninka wuxuu inuu dhageyso 1 milyan oo lacagta Suuriya ila asiiso waa lacag badan markaas 1 milyan arniya ma wala taadi 1 milyan hada asiiso oo ku talaaqaayo وصلت وسود هذا دغيش والله انا شيلين كسينين انا ادي وا بلنتي هدادا كسو بخنا طلابا كا قادا نيكا وايس حناجي عبد الحكيم مدخ لو دفتي اول هنا رفوسو اسكا باي دي توركي كربشيو كواره يا ودرتا مرك حناجي ركفور دولكا قال ادي لا كو تالا ما نيكا غوريس ما تغايو نو بلانكيسو اسكا جوغا شقادي غوريغي وخدو اسكا دايو ninkii hadana markii cabaar laga soo wareegay warninkii raadiyo anoo ninkan maxaa imtixaanka ninkii uu soo waday anoo la keenay gurigii uu keenay meesha fadhiyo fariisteen xornimo dheesh riyo walaalo maxaa iqaabaysa inay aybaysa marabta nin magacaada baanahay nin saara baanahay kan baanahay saasana niyo maxaa sameeyaa نيكي وحوري نيو أنيقا نيو وحا شيغا ما قانو شو وحا شيغا ما قانو بحتاي نيكا
markiiba asagaa wax baryaaya haddana fiilooyina istaabanaya dictoorka waa neerafosa waay waxa uu naagta mar walba u furaayo usoo ceshanayo oo meeshaa ku jirtaa moogta markaasuu wuxuu haye markaasuu yidhi dhagaysoo dhaadhiyo haye yow adiga naagta aad rabto inaad ku laabato soo naagtaadii ma ah haa inaan kuu furo soo ma rabtid haa iyada ma waraysatuu dhahay see u waraysanayaa warniyow iyada ma waraysatay war maxaa ka waraysanaa yidhi ayada maxay tahay sheekadaa sheegaysid hadda caruurta soo iskool ma jiraan yidhi haa odagiina soo hoos keligiisa ma joogo haa guriga cid kale maa joogta maye xaaskaaga u yeeru dhahay weydii waxaa ku tiraahdaa caadil inuu ku furo ma rabtaa haa hadday tiraahda shilinkaa ma qaaday haddaan kuu furo maxaa ka wadaadi aniga hadda waa maanta o dhan war ma wadayne u yeeru dhahay weydii ninkii dictor cabdixakiin awaagaa ku baryay oo ma ayadaa ku rabtuu yidhi kaasuriyo aniga maxaa iigu soo celcelina sheekhow ayada waa kanaa u yeeru dhahay weydii fadhiga sooma fadhino haa soo ma joogto haa kushiinkay ku jirtay ninkan waa u yeedha kaalayu dhahay way timid wuxuu yidhi dhagayso ninkan inuu ku furaan meesha u keenay ballantii waa la dhaafay inuu ku furaa la rabaa asagaa wuxuu leeyahay naagtaa aad rabto inaad ku laabato bal warayso marka ka jawaab ninkan inuu ku furo miyaad soo ma ogolid hoosaa la fiirinayo maba la hadlaayo mafahad war adaa kula دربيga ma la hadla adaa kula hadla waa xanaaqa ninkii tala cabdixakiin sidee wax u jiraan oo meeshaan maxaa ka dhacay meeshaan 3 أيام maxaa isbedelay 3 beri maxaa isbedelo dhaay agti waxay tirani oo dhageyso haye ninkan anaa waxaan ku dhahay lacag kasta hadda xakiin lacag waaysaay dictorka lacag kasta waa ku siinaa hadduu ku dhaho hayeelin oo maxaa ka wadaa waxay tiri 3 أيام wixii aniga aan arkay noloshayda ma arkin laa xawla walaa quwwata illa dictor cabdixakiin mar iyaduu fiiriyaa mar gaayii meesha fadhiyuu fiiriyaa war gabadha ma la sixray maxaa isbedelay ninkan wuxuu yidhi laba soo gala waryaa naagta warkeeda inta iska dhaaftay ama naagta ii fure markaasuu wuxuu yidhi ayaday ku xiran tahay ayaduu ku laabtay wuxuu yidhi ninkan ifurbadhay aniga 3 beri waa adduunkayga dhan ku soo qaatay iyo ninkan muxuu wataa u ninkan wuu isku dhex yaacay waa wareeray dictor cabdilxakiim maxlalka dhibaataduu leeyahay mararka qaar waa kana si fiican oo la socda dad badan oo waxaa isku fakeraa hadday jiraan alaabtaa kugu dhacaysa ninkii wuxuu yidhi marka wax yar isuga albaabkii inta xartay kushiinka inta galay uu wuxuu la soo baxay mindidii ugu weyneed kushiinka ku jirta naagtiisa iyo ninkanna labada gacan ku qaban karaa ninka xoogiisa mindiyuba u soo qaatay 50 طعنة وحليلادو كنتن مر أيو ويلكي مسكين كأها أيو من ديدي قلي مسكا قبا كردي ديكان با كو هذا سيو عادي لوغا حوق بدايا دانا من دي لوغو قراعي أيادي عرر ما اكتلابادو لوغو دتي سوغو لفتو بالري أيادنا قورتو كجاري لابادو دي مركو ديلي oo hubsaday inay dhinteen gurigu galay baasaboorradii caruurtiisu soo qaaday boorsooyinkiisa wixii qaadi karo soo qaatay odaygii aabihiisa hoos jooga waayeelkaa u tegay wuxuu ku yidhi aabbo
safar degdegan urdun ku tagaya waa soo laabanaya gabadha shaqaalaha ayaa kula sii joogayso dhahay intuu sii socdayna walaalkiis Cabdikariimka ayuu wuxuu emergency ku soo gal Suuriya aniga arin degdeg ah ugu dhacday urdun aan rabaa inaan aado ninkii marka gaarigiisu qaatay iskuulkii saddexda caruur ka sii maray ninkan waaba sii socday xuduudku aaday guriga maadaama uu filla ahaa oo kaligood ay deganaayeen haddana jiiraanka ama dadka deriska ah qaar ka mid ah waxay maqlayeen qaylada gabadha iyo wiilka cabaha ka dhacay guriga ninka waa birey dadka qoyla ka dhacday oohin dadkii marka qaarkood baabkii markii ninkii uu baxay guriga yaa ka qeylinay wax soo baxay mala way galeen gurigii gabadhii shaqaalaha ahayd oo ordaysa ka hortimin allah wala dilay yaa dilay caadil koo xaaskiisii oo odaga ninka uu qabayna wala bireeyay labadoodii waxay yaalaan qolka fadhiga dadkii deriska dhan isugu yimid meesha dawladii alla wacay booliiskii ay yimid wixii dhan ay yimid ninkan wuxuu ku sii socdaa xadka xuduudka markii uu tagay baasaboorradii dhiibay ninkii baasaboorrada iyo wixii saas u fiirinayay wuxuu arkay gacanta oo duuban fartiisa way duuban tahay waxbaa ku duuban degdeguu ninkan dhakhtar xataa ma tagin dhiiga ka taslaay ilaa intii tooreyda uu wax ku bireynaya asaga farta iska gooyaba farta yaroo meel kor ka gooy markaasuu ninkan stresska ku furan walwalka ninka marka daabidka ah ee xuduudka jooga ama airportka jooga waxaa loo baahan yahay inuu meel fog wax ka fiiriyo dadka qaar waa loo tababaray immigrationka dadka joogay qofka markay fiiriyaan walaahow iyo walwal iyo waxaas ninkan inuu wax soo sameeyay marka uu fahmo ninkan baasaboorradii uu ka qaaday wuxuu yiri maxaa kaaga dhacay farta waxaa waaye maaragtay gaariga intaa soo socday lugu iga banjartay intaasaa sameynayay aabbahalkii igu dhacay ninkan daabidka wuu fiiriyey baasaboorradii ka qaaday meeluu fariisiyey wuxuu yidhi maxaa dhacay maxay daayanaysaan ninkii sargaalka meesha u sareeyay immigrationka u tagay wuxuu yidhi nin noocaasa beeshaa jooga waana ka shakiysanahay waxaan u malaynayaa ninkan inuu khalad iyo dembi soo galay marka ninkan inta aan wax ka hubinayno telefoonna iyo wax noo soo dhacayaan haddii magaalada wax ka soo haleeyay kollay xuduudaha iyo waa la soo wacayaaye immigrationka iyo meel walbe ee ninkan niyahow aan maaragtay xaaladiisa ilaalin kiyaa soo baxay meeshii ninkii la arkay ninkii waa stress waa soconaa maanta dhan uu soo laabana caruurtii way yaaban yihiin aabba xagee noo wadaayidhe qof hadli kara baluu yiri haddii nimankan booliiska idin wareystaan aamus arrinaa dhacday ilmihii way iska aamusan yihiin ilmada Yurub iyo meelaha kusoo koro waa inta badan waxba ma qariyaan baasaboorradooda inay Yurubiyan yihiin markay arkeen ayay la boodeen nimankii taxqiiqa ah immigrationka nimankii wax baaray way ilmihii mid u wareysteen adiga baaxaga iskoolku igu soo waday adiga toogaasoo wada iskoolka safar ma idinku jiro maya wallaahi alcadiim iskuula soo aadna saaka hooyana soo macsalaamaysay khalaas odagii waa safreynaa ku hayaa ilmahaas ma wax qarinaya ilmaha Yurub iyo Mareykan iyo Canada inta badan beedba yaqaanaan moogtay wixii odaga qariyo waxba ma qarinayaan waa toorteen waa sheegeen nimankii markaas shakiga ku sii weynaad iyagoo iska daba wareegayaan ayaa waxa soo dhacay telefoon la leeyahay nin noocaas oo saddex cunug wata hadaa aragtaan hala qabto ninkii waa la qabtay waa la kaxeeyey booliiskii qaaday saddexdii caruura booliiska waday gurigii la geeyay meydkii guriga laga qaaday caruurtii meeshii joogtay gabadhii shaqaalaheeda la caruurta si hay ninkii la dhashay isaga ayaa maaragtay waxa la yiri walaalka waxa soo sameeyay asna tikid degdeg oo soo goostay Cabdikariimki uu yaaban yahay sheekada laakiin cid og male waxa meesha ka dhacay marka cid og male waxa dhan qarsoodi ahaayeen
ninkii waa lala kacay waxaa la geeyay Suuriya xabsiga lagu tuuray ninkii markaa la garaacay wixii uu sheegay sida ay wax u dhaceen sheekada marka meesha laga helay halkaas sidii wax u dhaceen uu sheegay wixii dhan uu sheegay ninkan waa la qabtay xabsiga lagu tuuray xabsiga markii lagu tuuray lacaga iyo ninkan lacag uu haystay wixii uu saraakiishu lacag wax u ballan qaaday 10 sano lagu xukum 10 sano kaliya lagu xukumay marka caadilka reerkiisa waa reer aan caadi ahayn oo maaragtay laga baqo waay oo macnaha kooxahan markaas jabhadaha samaysmaya walaalihiisa ku jiraan caadilka uu jarjaray uu dilay reerkii caadilka waxay leeyihiin dictatorkii dilma lagu xukumay maya waa noo taalaydeen maalinkaan qabanaa annaga ka arsanayno waa dilaynaa cabdikariinkiyaa guriga ku soo laabtay booliisku waxay yidhaahdeen cabdikariin hadday wax gaaraan adinkaa ka mas-uulin cabdikariin maba rabnaydheen annaga cabdikariin rajul muxtaram waaye ninka wax naga dilay ama tiirka geeya ama annaga maalinka aan aragnaan annaga dilaynaa nimankii marka waa caraysan yihiin waxaa dhacay marka kacdoonkii dhacay dagaaladii dhacay ninkaana marka magaalada Dimashq waa lagu xukumay meel kale oo gobol la geeyay gobolkii markii lagu xiray jabhadii soo galay maxaabiistii wixii oo dhan meeshii waa laga furay laakiin qoraaga marka wuxuu leeyahay ilaa hadda Dr. Abdul Hakim nolol iyo geeri maba lagu hayo maalinkii ilaa hadda nolol iyo geeri xabsiga dadkii waa ka baxsadeen waa ninkii ma la dilay maxaa ku dhacay ma dhuuntay meel uu galay lama yaqaan saddexdii caruura iyo odagii iyo cabdikariin dagaaladii ayaguna inta ku dhaceen ayaa lala qaxay cabdikariinkiya dacwooday iyo Mareykan iyo meelahaas la geeyay sheekadu marka maxlalka dhibaatada uu leeyahay iyo mushkiladda uu leeyahay marka ka hadlay wuxuu yiri marka la yaab lahayd wax diintu aysan ogoleyn waaye haddana wuxuu yiri dadkan way sameynayaan waliba carabta Suuriyaanka iyo Urdunka iyo Ciraaq iyo meelahan aad looga yaqaanaa wiil khaliijiintan iyo xogaa roon Soomaaliyana de waligiin waa maqli jirteen maxlalkii waxan iyo marka sheekooyinka la yaab kale oo bulshooyinka quseeya waliba dadka muslimiinta ah dhaqanadooda la falgalay ayaa waxay keenayaan dhibaatadan oo kale ka warrama marka maxay idin la tahay maxaynu ka ogaanay maxaanu ka baran karnaa waxa diintu ay naga joojiso dhibkeeda leeyahay diinta hadii lagu yiraahdo waxan iska daa wax adiga dana kugu jirto bay'ada dana ugu jirto bulshada dana ugu jirto waay marka dhibkaas marka meesha ka dhacay qisadeennana toddobaadkan ariga aynu ku soo qaadanay fakarkiina aragtidiina waa muhiim ha iloobinina qisada inaad like gareysaan fadlan share gareeya fakarkiina ka dhiibta waxa idin la tahay qisadeena toddobaadkan asxaabay waa nagaytaa inta aan mar kale qisooyin kale ku kulmayno nabadgelyo